إن أن حسوسنا أيرتهاي nin walba wuxuu ku dadaalaa caruurta si uu ugu shaqeeyo oo ma aragtay noloshooda iyo uu soo dhiciyo laakiin caruurta see loo tarbiyadeeyaa inaan baarno hatta ala mustawa almuhaadaraat waxa laga yaabaa inay iska yar yihiin oo inta badan aan arag muhaadaraat ku saabsan tarbiyatul atfal ama tacaamul ma'a al-atfal walaalayaal caruurta iyo tarbiyadooda waa waxa ugu weyn ee waalid walbo maxaa la yiraahdaa hawlayo oo uu ku hawlan yahay oo uu ka fakarayo oo ku taagan waa caruurtaas uu tarbiyadayn lahaa waa fitro ilaahay uu ku abuuray dadka caruurtooda inay ka fakaraan Soomaalidu waxay tiraahdaa aabaha waa qofka kaliya ee jecel ilmihiisa inay ka kormaraan xitaa walaalka waxa laga yaabaa in uu aad la sinmata iyo ma ogiye inaad asaga ka kormarta inuu sa jecleen laakiin waalidku wuxuu jecel yahay ilmihiisu inay ka kormaraan saasoy tahay waxaan u baahanahay in waxyaalo badan iska xusuusino sida loola tacaamulo ardayda ala mustawa muallimiinta iyo sidoo kale waalidiinta intaba caruurta sideebay oo la tacaamulaan maxay tahay waxyaabaha aan habooneen waxa laga yaabaa inaan kula dhaqmano waxyaabaha aan habooneen oo u qabna anagana inaan tarbiyayno oo sidaas ay tahay tarbiyadiisa ka hadli maayo waqti badan ma siin doono inaan ka hadalno fadliga uu leeyahay tarbiyatul atfal waa la socotaan dhamaantiin nusuus badan oo diinaha ku soo aroortay waxaan nooga filan xadiidkii nabiga ee ah calayhi salaatu wasalaam qofka bila aadanka markuu dhinto amalkiisu wuu go'aa halkaas ayuu ku haraa arrimihii laga soo reebay waxa kamid ahaa awwaladun saalihun yad'u lahu ilma saalix ah oo u duceeyo oo ma aragtay markuu dhinto kadib u soo duceeyo bal qofka waxa la sheegay nusuustu sheegtay wax khayr ah qofka dadka tusiyo in loo qorayo ajarka dadka uu khayrka tusiyo waxa ay sameeyeen oo ajar ah oo khayr ah oo nafci ummadda nafcigeeda ah oo maarta cibaado ah noocay doontaba in loo qorayo ayadoo laga nuqsaaminaynin midkii uu asaga tusiyay marka maxaad moodaa waalidka ku soo dadaalay oo cunugan aabihii iyo hooyadii dhalay ee tarbiyadiisa maarta ka fakiray ee khayrka tusiyay ee waaninayay ee la garab taagnaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weydiisana waalidiintaanada inta dhimatay inuu naxariisto inta noolna ilaahay uu dambi dhaafo allahumma arhamhuma kama rabbawna sigaran ilaahu naxariiso sida anagoo yar yar ay noo soo tarbiyadeeyeen marka walaalayaal fadli badan baa ku sugan nusuus fara badanna way ku soo aroortay waxaan rabaa inaan toos u galo nasaaix la xiriirto waxyaabaha haboon ee caruurta lagu la dhaqmo iyo waxyaabaha aan habooneen ee ay tahay in laga daayo caruurta qodobka koobaad ee nasaa'ixa caruurta sida loo tarbiyadeeyo ku saabsan waxa weeye in lagu tarbiyeeyo caruurta bil hubbi wal hanan caruurta in lagu tarbiyadeeyo jacayl qofka Soomaaliga inta badan caruurta tarbiyeyntooda marka laga hadlayo waxa ku soo degdegto in la garaaco oo ul intii loo qaato lagu edbiyo maalin dhaweed baan arrimahan ka sheekaysanay rag culimo ah oo ducaada ayaa nin kamid wuxuu sheegayay in la helay waalid kala baxay caruurta dugsiyada kamid ah ayagoo ku andacoonayo ciyaalka ma garaacayaan ma edbinayaan qof cunuga waxaad arkaysaa garaacayo marka wuxuu ku leeyahay maxaa markii la yiraahdana waan edbinayaa buu leeyahay marka saasa ku qufilan qofka Soomaaliga inta badan culimada tarbiyada ku takhasustay iyo cilmi nafsiga waxa la yiraahdo ama psychology-ga bila aadanka iyo dadka si loola tacaamulo waxay sheegayaan ilmaha sida loo tarbiyeeyo sida ugu qiimaha badan inay tahay inuu jacayl dareemo oo aabihii inuu jecel yahay uu dareemo oo aabihii hooyadii inay jeceshahay uu dareemo ay ilmaha uu dareemo xadiidkii Abu Hurayra uu soo wariyay fil adab al mufrad sahih imam al-Bukhari uu ku soo saaray
وحوشيغي أبو هريرة رضي الله عنه إنو أركي نبي عليه الصلاة والسلام وحيري سمعت أذناي لبدا إذا نقود وحي مغلين وبصرت عيناي هاتان لبدا إذا إن أودنا أي أركان رسولك صلى الله عليه وسلم أو عيارنا أيه ويلشي ووجا وأها حسن يا حسين قبدي سيدة شي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وحيري وحان أركي استقوا النبي وعيارنا أيه والله بدأ قعمود انتو ساعة وقبتي ويل كير وحكو تاجي لوها النبي أو كل يه صافول عنيك كركي صافول وحن أركب وير إلى هلكا وكو استاجي لويه وصاري صدرك الرسول صلى الله عليه وسلم مركزو النبي أفكا هذا فر انتو يريبو دون كذيبو مركو دون كذيبو يريبو النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحبه إله وأن جعل هاي جعلوا أي يريبو مركا النبي عليه الصلاة والسلام حديث بدن ولا قصه وريي عرورته دون كنجري nin saxaabi ah al-Aqra' ibn Habis xadiiska Sahih al-Bukhari ku jiray ayaa arkay nabiga oo dhunkanayo Xasan iyo Xuseen nin reemiyuhu iska ahaa wuxuu ku yiri nabi Allah miyaad carruurta dhunkanaysaa 10 cunug baa ii joogto yiri waligeyna mid kamid ah ma dhunkanin marka waa sidii baadiyaha looga noolaan jiray nabigu wuxuu ku yiri maxaan kuu sameeyaa haddii qalbigaada raxmadda laga siibay marka carruurta waxay u baahan yihiin jacayl aabahood inuu jacayl ka arkaan hooyadood ay jacayl ka arkaan aabahood inuu laabta soo gashanay ay arkaan uu ciyaarinayo uu dhunkanayo waagi hore miyiga markii lagu noolaa adamii baa lagu noolaayo miyi waa iska taqaanaa noloshiisa aad bay u adag tahay adayg marka maantayto oo adduunku uu bedelay oo meesha aad arkaysaan uu marayo xaaladiisa oo intaas oo ma aragtay hay'ado iyo intaas oo kanaal iyo intaasoo Facebook iyo YouTube ay ciyaalki kugula haystaan ay kula dhagan yihiin oo mid walba uu wax u sheegayo sidii waagi baadiyaha loo noolaan jiray in loo noolaado ayadoo Kampala la joogo ama Nairobi la joogo ama Muqdisho la joogo ama magaalooyinka waaweyn la joogo waa nasiib darro weeye oo carruurta jacayl aana loo muujinin sidoo kale Usama bin Zayd wuxuu soo warinaya radiyallahu anhu inuu nabiga habeen soo booqday habeenada kamid ah ayuu soo booqday marka wuxuu soo baxay buu yiri nabiga asagoo go'huwan oo moodo wax inuu qarinayo oo wax sidaas garbaha uu haysto marka arintan kala markaan dhameystay waxaan ku yiri nabi Allah maxaad qarinaysaa kugu duuban markaasuu saa u fayday buu yiri markaas waxa ka soo baxay buu yiri Xasan iyo Xuseen macnaha halkaan uu ku haysto go'bu saa ugu qarinayay markaas wuxuu ku yiri haadani labadani ibnaaya waa labadaydi wiil wa ibnati waa labadi wiil oo gabadhaydi dhashay ilaahay waan jecelahay jeclow ilaahay wixii qofkii jeclaadana jeclow marka u fiirso walaal cunugu inuu maqlaal raba aabihiisa ku oranayaan waan ku jeclahay waa wiil fiican soo ma adagaran marka xubbigu waa sida ugu wanaagsan ee qofka bini aadanka loo tarbiyadeeyo ee carruurta loo tarbiyadeeyo qodobka labaad oo qodobadaas maaragtay tarbiyada carruurta ku saabsan ee inaan sameeyno nagala rabo waxa kamid ah carruurta in waqti la siiyo aabuhu inuu waqti siiyo i'taa'u waqtin lil awlaad aabuhu inuu carruurta waqti siiyo inta badan sida hadda sheekhu uu sheegayay carruurta ragga Soomaalida inta badan gabdhahay ku hilmaamaan hooyooyinkooda marka intaan muxaadaradan diyaarinaya waxaan arkay meel ay ku qoran tahay risaalo fariin uu u qorayo wiil yar aabihi wuxuu ku leeyahay aabo waxaan ku weydiisanayaa inaad qaadatid qalin warqad oo aad qortid maalinkii waqtigaada meeqaad naga siisaa carruurtaadi baan nahay meeqaan ku leenahood naga siisaa waad noo soo shaqaysaa shaqaad aadaa waa sax laakiin waqtigii shaqada ka soo haray maxaa la sameeyaa bal waxaa dhacdo mujtamaceena oo aad iyo aad u garanaysaan qof aan waxba ku hawlaneen carruurtiisa inuu waqti una siinin oo laga yaabo inuu subaxii xitaa hadduu shaqaynayo galabkii fadhi ku dirirku fariisto uu maghribka ugu galo oo maghribkii haddana uu tukado oo ku noqdo maqaayadu uu fadhiyay oo haddana cishaha uu ku gaarsiiyo oo cishaha markii la tukado haddana mar labaad dib loo sii fariisto oo laga yaabo ilaa 10 in lagu gaarsiiyo marka
ciyaalkiisi waqtiga uu siin lahaa carruurta waxay u baahan yihiin waqti in la siiyo waxay u baahan yihiin aabbahood inay arkaan inta badan aabbayaasha Soomaalida ah ciyaalkooda waxay ka kalahaan fajarka waliba East Africa marka la joogo waxayna soo hidaan 10 habeenimo marka waxa dhacayso cunugiyo hurdo ayuu maaragtay yu ka kalahay wuxuuna u soo noqday 10 habeenimo cunugiyo jiifo marka inay intaas soo bari is arag baa laga yaabaa waa dhaweyd baa waxaan degnay Nairobi xaafad yara fog oo state ah marka rag baan is wareysanay xaafadda waan ku cusbaa marka waxay ugu yiraahdeen xaafadan Soomaaliya soo degin fajarka markaad salaada soo galaysid waa inaad labisan tahay bay ugu yiraahdeen ka kala waa laga kala xaafadan jam iyo waxba iska jiro waa la iska sii kalaha habeenkina islii ku soo tuko cishaa sagaalka la soo baxaa bay ugu yiraahdeen marka ninkii ii sheekeynay baan su'aal weydiiyay oo carruurtayda goormeen arkaya baan ku yiri carruurtayda goormeen is arkaynaa marka jawaab uu ii waayo hadda meeshu waa jam oo saas umaan anigu 10 sano ku deganahay buu yiri xaafadan meeshu waa iska jam marka aad wadamada Carabta iyo Asia iyo wadamadaas marka tagtid waxaad arkaysaa waalidiintu waxay siiyaan carruurtooda waqti fara badan shaqada markuu ka soo baxo uu iimaanaya galabka carruurta gurigiisa u iimaanaya markaasuu carruurta maxaad soo baratay in la dhahay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in laga fiiriyo waxay homework ama shaqo loo soo diray waxay u baahan yihiin aabahood inay arkaan waxay u baahan yihiin inay maghribka u soo raacaan waxay u baahan yihiin inay cishaha u soo raacaan oo tarbiyada carruurta waxa kamid ah aabuhu inuu maghribka carruurta u soo wado dadka saalixiinta carruurtooda tarbiyadooda ku dadaalo maghribka iyo cishaha ay masaajidka ku dhaxayaan halkaas ay casharkii ku akhriya ku yiraahdaan ama buwaagtooda ha soo qaataano homework ha ku sameeyaan ama casharkooda ha ku ceshadaan markaasay dib u wada noqdaan cishihii ayagoo waqti fiican soo qaatay bacda cishaha kadib bay markaas waqti kala sii qaataan ilaa ay ka seexanayaan aabbaha waxaa la rabaa carruurtiisa oo ka hor seexatay inayna dhicin inta badan maalinka ay dhacdo oo duruuf ay ku keentana inay qalbigiisa ay u xisaabsan tahay carruurta xalay ismaana arag oo subax is salaamaan waa carruur iyo aabahood uu ka dhaxeeyo jacayl waa carruur iyo aabahood uu ka dhaxeeyo tacalluq iyo isku xiriirsanaan marka walaalayaal arrintaas waxaan isfaraynaa waxaan maaragtay isku naseexaynaynaa bal aabbo walbo dib hadda u fakar wiilkaas qalinka qaaday yiri aabbo qalin qaado oo fakaro wuxuu yiri bal qor inta aad waqtigaada naga siiso bal qor waxa aad nooga tala gashay time-kaada qodobka saddexaad ee carruurta tarbiyadeeda asaaska u ah ama qawaacida lagu najaxo waxa kamid ah التفاهم والاحترام carruurta iyo aabahood inuu u dhaxeeyo tafaahum isfahan inuu u dhaxeeyo aabaha ma ahan inuu noqdo mid laga baqo oo jaranjarada markuu soo fuulay qajaftiisa markay maqlaan carruurtu ay gabadaan mid sariirta hoos gala iyo mid baqa iyo aabba soo socda la dhaho la kala carro sax maahan arinta sax maahan carruur tarbiyadaysan oo aabahood ka baqaysay dadka Soomaalida u maleeyaan bilcaks nabiga kaleey salaatu wasalaam siiradiisa marka aragtid carruurta kama igna kala carari jirin sallallahu alayhi wasallam ee carruurtu way ku soo carari jireen carruurtu way u iimaan jireen nabiga kaleey salaatu wasalaam bal asagoo dadka tujinayo xadiiskii saxiix ahaa waa isagii cunug yar uu dhabarka kaga fariistay oo nabiga kaleey salaatu wasalaam asagoo xambaarsan buu dhigay uu xirtay sujuudi markuu gaaday buu dhabarka kaga fariistay nabiga kaleey salaatu wasalaam markaas dadku waxay yiraahdeen nabiga miyaa la oofsaday sujuudi baa aad u dheeraatay ma waxay baa ku soo degayo saxaabi baa wuxuu oranay intaan yaabay baan kor madax u qaaday mise waxaan arkay nabiga oo kor uu kaga fadhiyo dhabarka cunug xasan iyo xuseen midkood labadii wiil oo uu ahaa nabiga kaleey salaatu wasalaam markii salaadii laga baxay nabigu wuxuu ku yiri wax dhiba ma dhicine wiilkayga ayaa daabad iga dhigtay irtaxalani macnaha waxa weey korkaygu daabad ka dhigtay marka inaan ka kala gooyaan diidayay saasa intuu ka degayo yaan ugu sugayay buu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam marka ciyaalka walaalayaal waxay u baahan yihiin ixtiraam in la ixtiraamo ayay u baahan yihiin inta badan Soomaali ahaan waxaa naga dhaadhacsan cunugu inuu ilmo yar yahay oo ixtiraam una u baahnayn cunugu waa iska ilmo yar haddii aad waxa rabto ku samayso wuu iska aamusayaa haddii tabar kale ma hayo
هدو كحوم هذا حتى وسك قرصنايا لكن وحص وضوبيا قف والبو بلا آذن احترام بو باهية عنو يرو يجوغو 5 سنة جيران مالن دو دحان كو يري وريا وحاس ما سميست markaas wuxuu yiri wariyaa maxaad ii leedahay soo aabahay ma tid wariyaa maxaad ii leedahay bidir soo aabahay ma tid marka aad buu iga qosliyay markaas waxa ku yiri warwaayahay wariyaada ma nacabta suur ha waa nacba maxaad jeceshahay maayna aabba in la dhahan jeclahay waa 5 sano jira 5 sano wali baan buuxsamay aabba in la dhahan jeclahay wariyaada ma jeclay ha wariyaada ii leedahay soo aabahay ma tid marka cunugu haba yaraade ixtiraam buu u baahan yahay waa insaan dareen buu leeyahay adiga hadda qofka ku ixtiraamo walaal ii waran ninka hebelaani fiican baa tahay ku dhaw iyo qof aan ku ixtiraamin masuu kamid baa waa ma yeesoma ilmaha yarka ah ilaa iyo marka uu hadlin ka horba ixtiraam buu u baahan yahay in la ixtiraamo ixtiraamkiisa waxa kamid ah in la dhageysto cunuga in la dhageysto u baahan yahay oo abiyi hooyadii ay dhageystaan ciyaalka inta badan duurka galo waxyaabaha sabab waxa kamid ah waalidka oo na dhageysan Soomaalida dibka haysta waxa kamid ah markii westiga loo baxay galbeedka waxay noqdeen mujtamacaadka ugu badan ee carruurtu ay ka fakadaan halka walaalaha Pakistaanta iyo Hindida iyo laga yaabo in badan oo kamid ah inay carruurtu u badbaadaan maxay yeelay dadkaas waa mujtamacaad qoysas is haysta way aabaha iyo hooyada iyo carruurtu inta badan waa saaxiib cunugu saaxiib kalaba ma yeelanayaba khaliijka waxaan ku arki jirnay carruur hindi ah ama Pakistan ah oo ku dhalatay Qatar ama Sacuudiga oo erey carabi aan soo rogi karin maxay yeelay saaxiibka kaliya uu leeyahay waa hooyadii iyo aabihii waa qoysas isku xiran oo ayaga dhanba sirkal xiran ah ama ma aragtay goobo sida u xiran ah halka qofka Soomaaliga wuxuu rabaa sidoo uu noolaan jiray markuu miyiga la joogo inuu u noolaado isagoo New York joogo ama joogo Ohio markaas wuxuu rabaa inuu carruurtiisa waqti siinin oo la sheekaysanin oo dhageysanin markaas waxa ku dhacayso cunugu wuxuu raadinayaa saaxiibadii wuxuu raadinayaa qof dhageysto wuxuu raadinayaa qof jeclaado wuxuu raadinayaa qof uu sirta u sheegto Hindida iyo Pakistaanta inta badan carruurtooda sirta ayagay u sheegtaan aabaha marba waxa macallin u ahaa aabo hindi ah oo muslim ah carabiga dhigan jiray oo reer Hyderabad ah iyo carruurtiisa oo isku fasal ah carabiga wada dhigtaan siday saaxiib u yihiin iyo say u kaftamayaan iyo kalsoonida aabooda oo la hadlayaan waxaad inaba suuraysan karta maaha marka walaalayaal carruurta waxay u baahan in la dhageysto ciyaalku way su'aal badan yihiin waa makhluuq yar yar oo adduunka ku cusub wax walbo adduunka yaala marka su'aal bay ka qabaan wax walbo adduunka yaalo nalkaasay wax ka weydiin wax aad su'aalo aad la yaabtay marmarka qaar ku weydiin waxa haday dhacaan maxaa dhacay ku dhahayaan waad aragteen marka dadka inta badan ma jeclo su'aalaha carruurta war aamus bay ku dhahaan 99% waxa laga yaabaa su'aalaha uu weydiiyo 99 in war aamus lagu dhaho iyo soco dad waaweyn ba meeshan ku sheekaysanaya waa sida aan sameeyna qaaliban war orod war soco war bax amar noocaas ah ayaa ugu badan waaba anagu qadar joogno yaan qolo Soomaali ah la sheekaystay marka Soomaaliga carruurta ku adag waxaan ku yiraahdaa Soomaaliga maxaa ka taqaanaa markaas waxay yiraahdeen waxaan ka naqaanaa awaamir aabba uu nasiyo kaliya ka naqaanaa oo maxay ahaayeen bax tag seexo akhriso cun dhowr noocaas ay sheegeen aabahoodna marka waa nala joogaa marka uu qoslaya waxay dhaa wax kale oo ka naqaanaa Soomaaliga ma laha waxaan ka naqaanaa bay dhaheen awaamirta aabbo u nasiyo mostly aabbo inta badan islama hadalnay dhaheen inta yaraan isla hadalnana awaamirta umbuu nasiyaa bay marka inta ummaan ka maqalnaa carruurta marka cilmiga tarbiyada dad ku takhasusay iyo cilmi nafsiga culimadu waxay leeyihiin waxay u baahan yihiin in la dhageysto su'aalo aad u arkaysa adiga taafih ama wax iska liito ayay ku weydiinayaan marka waxaad u baahan tahay inaad sabir yeelato oo og tahay inay yihiin ciyaal yar yar oo adduunka ku soo biirayo oo xog iyo macrifo ka rabo wax walbo adduunka yaalo ka dhageyso walidaalika waxay ka sheekeeyaan inayna habooneen in aad carruurta marmarka qaarkood su'aal markay ku weydiiyaan si iska qosol ah oo inaad isdhaafinaysa aad u tusinayso may jeclo xitaa midda carruurta waxay ku leeyihiin wix intii suuragal ah
waxaas sida runta inaa u sheegtid ayaa fiican waxaas haday dhacaan maxaa dhacaya waxaas maxaa laga wadaa waxaan maxay yihiin sida dhabtiisa inaa u sheegto aaba waxaan iska daa cunug yar baa tahay ordaada dhihin meelaha hadii qaar xuduud aan loo fasiri karin hadduu gaaro si yar maldahan waa loogu dhigi karayaa laakiin inta badan in laga dharjiyo su'aalaha ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin carruurta in ixtiraam loo muujiyo waxyaabaha qaar lagala tashado waxa weeye makan baa rabtaa mise kan in la yiraahdo walidaalika waxay ka sheekeeyaan cunuga markaad wax ka celinaysid inaad garaacdo oo waxaas aad ku disho ma ahan waan ka hadli doonaa waxay yiraahdaan optionska ama ikhtiyaaraadka loo yareeyaa waxaasaan rabaa markuu leeyahay aabo kaale waxaas hadda ma yaalaane labadaa mid dooro مثلا قميص بو كدغي قميص وسقه عرورته واد aragteeno shay buu marmar isaga dhigi shayga aan rabaa inaan gashto ku dhig shaygan waa wasaqaysan yahay markaasna intii la dhaqo isla markiiba lama qalajin karo marka war hadaad xiranayni midkan waan ku garaacaya hadaad ama qasab intaad dishay mid kale ugu xirto waxay yiraahdaan culimada tarbiyada waxa ka fiican in laba khiyaar aasiisid qamiiska xagga dhig aaba shaatigan buluuga ah iyo shaatiga guduudka mid dooro labadan mid qabso kan waa shaatiga guduudka aha kana waa shaatiga buluuga aha mid dooro wixii hore dhan uu ilaawaya labadaas ku mashquulay kan buluuga aan rabaa ku leeyahay maada dilin ogow shaatigiisana uu xirtay iskuulkiisu ku aaday marka wuxuu baahan in wax lagala tashado adiga maanta tama waxa rabtaa inaad cunto chips mase chicken inaad cunto rabtaa macnaha wuxuu dareemay in la ixtiraamayo ayuu dareemayaa mar waxaan xusuustaa annagoo macallimiin ah يا عنق جرو 10 سنة ملاس أيها وحجوري عرب وها حجوري يا أستاذ أنا أحترمك معلنا وأنا جوانكو احترامه ويقولي مركوان يا أبي وحكوضه عنكو إيري محد هو احترامته وحيري لأنه هو هذا احترامته ويقولي مركا وهم حيبان كويري سانكو احترامه مركب معلن كلوي أو مصري أو هنا للشقين يبو يبربري وحير معلن هبل إما احترامه ولذلك هو نعبه وزبالة وقشن معلنك وعايا معلنك هذا عاين معلنك إنه عايان كنا هي يوم كعلي صير معلن السجا عايو إما احترامه معلن والبو يقول لنا يا دقم باتاي بيقول لي دمين باتاي بيقول لي وحم بيجي شيء يا ويعبسينا يا وانكبقيا ولذلك ما احترامه يجري أديك لك واقو احترامه محيا لوادي احترامته ويا أبي وأسقى قصلي معلم كيس إنه ما رت وحكي شيء أنا وكعلي لكن هل كدرس بقى يعني كفائدة ما رت عظيمة عنقو إنه أبهين هي إلا احترامه عيالك حيو بهين إلا لا شيء كيستو احترامك حكم إلا لا شيء كيستو هذا مثلا عنق بوحو كويري أبو ما ددا حسابته والنعبة وريا أدب ملي هذا إكسساس كذا كشقين على هذه بالغيابة نورمالي وحبرا وريا أدب ملي هذا كشقين حساب تلوح لقوا صوت وريا صوت ما أنت بدر حوار بو بهين عنق جالس وكلا عنق هدو حكوش شيء أنت بدر الله يابتو أما أديد انتهي لا هذا أبو محد كون على حسابته على جابه معلن ونعبيه هنا ودقو وحلا جابه وح إنه كو أذكتهاي حلا جابه إنه كشقين ويا نورمال لقوا عاي أما درجة يرلوسية وحن بعد عكره هيا أبو ما حد عاي ما حد كون علي كقنعي هدو يري هي أو سي قف وين هذا وقنعين كرينين سي كلا قصة سوا أبو أجو كجعل هاي ما دنا وفي عنتها هاي كددال والعقل بدن بعتها وتكون باسيسة لكن مركو كوير أبو حسابته والنعبة وريا إذا ملي هذا إن هذا وحبرت مرة الدميو أرضه حسابته هذا لقوا صدر كشقي هدات هذا وحد أفائدة سمالهن ملبون كدوبيا هذه وحي كلها تعنو جاينو يريهي أو وحس أونان وحبك سوق عادي لكن أجاده وحبك كسوق عادي عيالكو وحي ماركتي إن مرول بوحي دوبان وين حسوستان لكن أنا جا وحنو مرينا إننا الاحترام وباهنين بدن إن عيال اسكيهين قربك إن كحيجو ماركتي احترام كعروته هوسي معنا وحوي أبها إياه يدو إن مرونة وحليره هذا موجيان مرونة أما مارتي إنه المها ودب عسينين هدينا وحاس أهين وانكشكين دونايا وحول بين لو ودب عسنا هذا معه أو وحنكشكين دونا
xaalad u dhaxaysa inay jirto in aad loogu adkaado iyo in maaragtay aad loogu dabacsanaado wax walba loo yeelo faraha laga bixiyo cunuga dabacsanaantan ka sheekeynayna waxa weeye wax yar oo uu ku dhegsaday oo loo deyn karo in aan wax weyn ka dhigin oo ku dhegsanin مثلا shaatigan inaan iska siibaan rabaa hadduu yiraahdo ama buugan in la iga bedelaan rabaa waan iga jaxjaxmay wariya buuga waxba kaaga dhiman intaas oo baale caruurta waad aragteeno maalin walba buug cusub bay dhameynayaan buug isii cusub bay ku leeyihiin ama qalinkii hore oo dhammaan buu qalin isii ku leeyahay inuu isku dhajinay hadaa aragtid u siidaa wuxuu dareemay inaad ixtiraamaysid wuxuu dareemay inaad jeceshahay muruuna ayaa la yiraahdaa iyo dabacsanaan ama flexibility furfurnaan inuu aabbo u furan yahay wax markuu ku dhago uu deyn karayo ixtiraam weyn buu u qaadanaya qodobka afraad ee tarbiyada caruurta muhiimka ah waxa kamid walaalayaal imdah tiflak cunugaada amaanta in qofka la amaano waxay samaysaa meesha aad rabtay inuu gaaro ayuu gaarayaa hadaa qofka amaantid wuu isku xishoonayaa marka cunug wuxuu u baahan yahay in la amaano wiil fiican baa tahay wuxuu u baahan yahay in dadka hortooda lagu amaano oo waalidku uu yiraahdo markii dadka aabahu adeeradoodii ay ku imaadaan iyo dadka ku soo booqdo markii lagu hebel halku maraya meel hebel maraya ma sha Allah waan aad u jeclahay aad buu noogu dadaalaa waana ku hanweynahay intaas adiga waxay kula tahay wax iska caadi ah laakiin cunuga macna weyn ayay u sameynaysaa marka caruurta in la amaano oo lagu maaragtay lagu tashjiiciyo lagu dhiirigeliyo ما شاء الله أبا ما أنت واد في عناد وحات سميسي أبا وحاسد كوفي عنتهاي إن مركا أمانتاس وحن صوح سوستامر والبو أنا ير حنو ملين نجري سجال سنة مالها أما 8 سنة أيوة حاسد دكسي بان نجين شرني مركا أرض إسكت دالنا ها قرآن كود داله نمن صاحبة أم بانكو حرمة يالك أنت بدن صاحبة اللي حيو مركا وحي باللامين إنا إسكا عيارنو إنا ملك لا إسكا آدنو أيام بلوني معلنك دكسو نلا soo diraa waan garab marnaa macallinki ba maalmaha kamid ah wuxuu igu arkay magaalada marka wuxuu igu yiri eray ilaa hadaan ilaawin macallin maxamed dheer la dhigi jiray aduu dhintay Allah u naxariisto warkiisa waxay igu dambeysay 20 sano ka hor iyo ka badan anoo yar baa igu dambeysay wuxuu igu yiri maxaa ku dhacay Umarow arday aan jeclahay baad ahayd codkaada quraanka ku akhrisan jeclaa tartanada inaan ku dirsadaan rabay arday aan jeclahaad ahayd maxaad kuwa qaarkood ugu farax xirato maxaad iga tagtay maxaad uga tagtay dugsiga arintii way murjisay ogow waxaan u malayn hadaan markaan ugu weynahay 10 sano inaan jiraan u malaynaya way murjisay 9 sano meelahaas jiray hadaan ba ka yareen ba way murjisay arintii halkaas waxaan ku go'aansaday inaan mar dambe raacin nimankii waliba wuxuu yiri ninkii hebel ahaa waa ninka asal lunay ninkii hebel ahaa hooyadii waxa ku tiraahdaa macalinka fariin buu ku soo faray hebel uu gambiyaa bariyahan hala keeno markaas waxaan go'aansaday inaan ragga ka haro mar dambana macalinkayga aan xumaynin ninkiina fariintii hooyadii baan gaarsiiyay waa igu la coloobay caruurta waa taqaan col baa la kala qaadaayo caruurta groupka oo dhan baa lagu diraayo col ha laga qaadaa le shib ha laga dhaw shib baa laga yiri groupkii oo dhan marka waxaan ilaa hadda aan xusuustaa macalinka saan u jeclaaday ilaa hadda jacaylka waan u hayaa waxaan dareemay inuu ixtiraamayo macalinka waxaan dareemay inuu taqdiir ii hayo marka waxaan ooga tagay iyo waxaan u googooyo midna meesha ma yaalaan maalinkii baa igu dambeysay maalinkii wixii ka dambeeyay macalinka baan ku xirmay macallinkii baan waxaan noqday ardaygiisii oo sax ah hadduu maalinkaas macallinka igaraaci lahaa bal ka warrama ama uu igu qaylin lahaa damiin baa tahay uu dhihi lahaa ama waxaa tahay mooryaan meelaha wareego ma soo noqon lahaa ma soo noqon lahayn mooryaan baan sii noqon lahaa duurkan geli lahaa walidaalika shacabka soomaalida waa shacab muslim ah oo diinta jecel oo carruurtooda inay diinta banaan jecel oo qur'aanka ku dadaalo wadamo badan oo carab ahaan maray ma arag mujtamac muslim ah oo soomaalida la mid ah xagga qur'aan jecelka oo ciyaalkooda raba inay dugsi geeyaan carabta inta badan qur'aanka dugsi ma bageeyaan ba carruurta عليا قف إنه سكوي ناس هو الله أكبرنا أنا أقول مع ذلك وحد أركيسا وحد نوجو بدن إن عرور تدكسيك دجانا يو أي موريان نقدان مين أنا هين أو أي قار إسبارة دكتان هذي ربان ها وعيالك قرانك مقالة دينك الصومالي كم يدوح حسوتا
macallimiin baa waxay ka sheekayn jireen ayagoo magaalada dhex marayo inay qabteen ciyaal isbaaraysanaya oo mid ka mid ah ardadooda uu ahaa macallin habeenkii meesha anaga ka kalluumaysanee isaga carar samad garan aabbayaasha dhammaanteen waan ognahay dadka Soomaalida qaaliban dhibabka haysta waxa ka mid ah cunugi quraanka markuu xifdiyo dugsiga dhameeyo ayuu kutubta xoreeyaa oo wax aad noogu badan mujtamacaadka kale quraan ma xifdiyaan badan laakiin halka quraanka xifdiyo xaafid baa la dhahaa oo nin ahlu quraan uu noqonaya waa la yaqaan laakiin waxa uu kutubta xoreeyo anigu kulli waxaan u aaneeyay ixtiraam darrada ciyaalka lagu hayo dilka iyo cunfiga waxaan maaldood nin uu nooga sheekeynay mashaayikhda kamid ah inay Soomaaliya ka dhacday cunug baa macallin baa qabtay si xun buu u garaacay adawagaas waliba dagaalay wax baa socday qoryihiina waa la iska wada haystay gurigu aaday qori buu soo qaatay macallinkii dugsiga ugu yimid oo ciyaalka quraanka u yeerinay markaas wuxuu ku yiri macallin soo saa u soo fiiriyo markaas halka uga dhuftay xabad halkii buu ninkii macallinka ku dhintay qisooyin kale oo badan baa la sheegay ciyaal saas oo kale ah mooryaan u carray dugsi intii lagu garaacay carray mooryaan galay aabahoodii waalidkoodu raadinayo mooryaantii dhexdooda ay dileen oo bililaqa iyo wax la soo dhacay wax baa la isku qabsaday intaas oo usbuuc markii la raadinayo soo meedaha la helay waa cunug dugsi ka carray oo la garaacay marka walaalayaal ilmuhu waxay u baahan yihiin ixtiraam waxay u baahan yihiin in la amaano qodobka shanaad ee maaragtay qodobada tarbiyada muhiimka u ah kamid waxa weeye carruurta inaan la caayin la tashtum awlaadak carruurta caayin waxa ugu badan inta badan tarbiyana moodnaa macallimiinta quraankana way ku badan tahay in ardayga lagu dhaho damiin baa tahay in cunug ardayga lagu dhaho wax waalan baa tahay hooyooyinka iyo aabayaasha marar badan waxa dhacdo in eray lagu soo celceliyo cunuga oo la yiraahdo haday hooyadu maalan ay malaynayso cunuga inuu dad ciyaalku isku aqli ma shardina ma ahan inuu cunugu noqdo aqil sida midka ilaahay aqliga u dhameystiro kale mid wax ciyaalku waa kala aqli badan yihiin midkii wax yar ay ku tuhmayso hooyada waxa laga yaabaa inay dhahdo war kan doqon way xoolaa cunuga yarka ka fiican oo inta ku celceliso meen ahayn dhaqankeena soo kuma jirto waa lagu celceliyaa midka aad u isku waalwaalo ee murabbishka ah ee dhibka badan waxaan dhahnaa waalan yahay wax badan baa la sheegi markaas waxa la cunugan waalan yahay sida loo wado culimada tarbiyadu waxay sheegayaan ciyaalka gaar ahaan 5 sano ilaa 9 sano waxa u dhaxeeyo waxa lagu soo celceliyo ee dadku ay ka aaminsan yihiin ayay u maleeyaan inay yihiin bal u fiirso ciyaalka 5 sano ilaa 9 sano wax dadku ay ka sheegaan ayay aaminaan inay yihiin damiin baa tahay hadii lagu celceliyo damiin buu noqonayaa damiinnimada lagu sheegay hadii la iska dhaadhiciyo damiin waa la noqon karaa hadii lagu celceliyo wiilkan waa wiil fiican ma sha Allah waa wiil dadaal badan waa wiil quraanka ku fiican wiilkayga waan jeclahay wuxuu isku dayo bal waxa inuu noqdo oo xaqiijiyo oo gaaro marka waalidiinta waxa laga rabaa qowl xasan in carruurtooda ku dhahan القول الحسن إن عروتو ku dhahan oo ay ka dhaafaan ereyadaas xunxun maxay yeelay cunugu duubaya waxaan soo sheegay qisadii macallinkii masriga ahaa wiilkii ka sheekeynaya tomajirka muxuu yiri uu icaaya buu yiri soma gabi buu igu dhahaa buu yiri damiin baa tahay buu yiri doqon baa tahay buu igu dhahaa baliid baa tahay buu igu yiraahdaa marka anna waan nacabahay buu yiri marka ciyaalka inaan la caayin macallimiinta waxaan ugu naseexaynaynaa iyo aabayaasha iyo hooyooyinka carruurta inaan la caayin caydaas carruurta la caayinayo waxay sababaysaa in carruurtu ay ma aragtay ay nacaan waalidka wax tarbiya ahna ma noqonayso waxay noqonaysaa inuu niyad jabo cunugu waxay noqonaysaa inuu hanjabo oo hankii uu lahaan lahaa hadda ku tiri cunuga damiin baa tahay hadda muxuu sii raadiyaaba muxuu u dadaalaaba haddii maantana lagu celceliyo damiin baa tahay qodobkaasna aad waxaan ugu celcelinayaa Soomaalida inta badan cunuga waxay ka rabaan midka walaalkii ah darajada intuu keenay oo kale inuu keenay ka rabaan waxaasna ma dhici karayso oo Ilaahay baa u qaybiyay mid waxaad arki maskax badan mid waxaad arki xifdiga ku fiican
mid waxaad arki ku fiican maxaa la yiraahdaa xisaabaha mid waxaad arki maada kale ku fiican marka caruurta inuu ogaado aabahu oo uu yiraahdo hebel waxa weeye uuna dhihin hebel baa ka fiican hebel oo kale maxaa uu noqon weyda damiyo ninkan 100 buu keenay adigana 50 baa keentay maxay u ziyaadinaysaa tarbiya ahaan inuu xiqdi u qaado walaalkiisa kale iyo inuu niyad jabo oo hanjabo oo cunugaas uu ma aragtay muxuu u dadaalaaba haddaan ku iraahdo haddaan laakiin aan ku amaano ama aanan ku caayin waxa laga yaabaa xas leedahay bal xoogaa iskula haro dadaalo ma aragtay aabaha bal meesha iska qaad buu isleeyahay cunugu qodobka lixaad walaalayaal waxa weeye almuqaarana bayna al-atfal waa midka hadda aan sheegaynay iyo qayb ka soo galaya oo waxa weeye caruurta inaan isku barbar dhigin waalidiintu way sameeyaan aabayaashuna way sameeyaan in la yiraahdo cunuga hebel baa ka fiican ama macalinka quraanka uu dhaho damiyo cunugan ka yar bal fiiri hal suurad buu soo xifdiyay adigana hal baad xifdin la adahay marka midaas waxa la yiraahdaa al-muqarana caruurta hadii loo muqaaranayo qof kaleete maxaa la adiga hadeertan oo qof weyna haddaan ku iraahdo maxamed baa lagu dhaha maalan ama cali baa lagu dhaha caliyow axmed baa ka fiican oo ka degan oo ka dabci fiican oo ka dhaqan fiican ka warrama ma ka xumaanaysa mise kuma xumaanaysa xitaa adigoo og inuu ka fiican yahay ma ku raalli ahaanaysa warkaas mise kuma raalli ahaanaysa kuma raalli ahaanaysa ma adoo og inuu ka fiican yahay waa dhibsanaysaa macallimiinta quraanka macallin cali iyo macallin maxamed baa asaag fadhiyo hadduu intaan ku imaado ama ardaygu ku dhaw macallin caliyow macallin maxamed baa quraanka ka badiyo uuna ka cod qurxan yahay uu ka dhaqan fiican yahay asagana ka jecelna adiga waan ku nacabna haddii aduu ku dhihi laa ka waran maxay la tahay macallinkaas soo ma xumaadeen soo cunuga ma dileen oo ma garaaceen cunuga marka aan ku celcelinayno wax sahlan baan u malaynaa oo tarbiya ah aan leena wariyaha hebel baa ka fiican uu ka degan yahay si kala u tarbiyadeen laakiin abadan ha ku muqaaranayna cunug kaleeto qodobka toddobaad waxa weeye tarbiyada caruurta wadcu qawaacid lilbayt guriga in loo sameeyo qaanuun iyo qawaacid oo caruurtu ay og yihiin oo ma aragtay lagu iltizaamo caruurta markay yaryar yihiin waliba sanadka shanaad iyo afraad iyo laga soo bilaabo xilliga tarbiyada ay soo gaareen ilaa 9 iyo 10 iyo ay ka gaaraan 1 iyo 10 iyo waa xilliga ugu fiican oo la tarbiyadeeyo xilliga qaabka loo tarbiyadeeyana inta badan waxay saamaysaa inta noloshooda ka dhiman walidaalika ayuha alahibba waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah in cunuga lagu tarbiyadeeyo guriga inuu qaanuun leeyahay iyo nidaam qaanuun iyo nidaam markaan leenahay waa qoys isfahansan waa cunug la ixtiraamayo waa cunug wax loo sheegayo oo wariya aamus edab malihida seexaan la dhahayn ee wax laga dhageysanayo cunuga iyo guriga in loo sameeyo qaanuunka waxa kamid ah qofku xaleeyo asaga hagaajinayo waxyaabaha tarbiyada aad nooga khaldan waxa kamid ah cunugu markuu madrasada ka yimaado halka guriga uu ka soo galay iyo kabaha uga soo tagaya midba meel ayadoo kala taalo sarwaalkana meel dhex ku siibaya shandadiisina wuu tuuraya shaatigana meel kale ku sii tuuraya waa markuu gashan rabo moogta dharkii guriga uu ku joogi lahaa hooyadii baa marka ka soo daba ururinayso soo ay soo qaadaysaa waa cunug yar bay ku leedahay sax ma waxa la rabaa in la baro cunuga waxa uu haleeyo inuu asaga sameeyo hadduu saxan wax ku cuno at least inuu qaado oo jikada geeyo meesha lagu dhaqi lahaa meesha wax lagu cunayay qofka wax ku daaday qof walba dhinaciisa inta soo jirto aaba soo adiga ma daadin adiga intaada ku soo rid qof walba wuxuu daadiyay waa inuu ku soo ridaa waa qaanuun la isku ogyahay waxa kamid ah xilliga telefisyoonka la daawado iyo xilliga la damiyo in qaanuun loo sameeyo telefishinka dhib badan baa ka taagan waa la socotaan laba ra'yi baa jiro ra'yi waxay leeyihiin dadka tarbiyada caruurtooda ka fikirayaan ka hadlaya kuwa waxay leeyihiin telefishin yaan guriga la keenin sidiisaba yaan la keenin waa shar halkiisa naga joogo qolo kalena waxay leeyihiin telefishin lagama maarmo guriga la soo dhigo markaasay albaabada u furayaan waliba markaasuu cunugu wuxuu raba gelayaa intaa waxaa dheer waqti badan buu ku dilayaa homework xilliga laga rabay xilliga shaqadii inuu ka shaqeeyo buugga laga rabay xilliga quraan uu akhrisan lahaa maskaxdiisa oo dhan filim waxa qaadanayo kartoonkaas iyo kanaaladaas
markii aad isku celceliso arrimahaas horta waxaa hubaal ah waxaan ku noolnahay xilli telefishinka iyo qalabkan la isticmaalo ay noqdeen daruura wax daruura ah ayay noqdeen oo waxaa la yiraahdaa digital generation ama jiilka digitalka ah oo ma garatay qalabkaasi loo isticmaalo iyo waxaas ayay ciyaalka way ka badiyaan qofku ka yar yahay uu ka sii badiyaa جزاك الله خير وقتي أذان كان الجاري أذان كان مركه رأى فصحينا إن شاء الله مركزا سكسون قلنا تفضل ولا ليال وحن مريني تلفزيون سيد اللي جاي لها وحن نري تلفزيون وشر بدن يهي وحن كنا لنا هاي حلي ليرا هذا جيل ماركتي ديجيتال قلب كاسي لو استعماله qof walba qofka uu ka yar yahay uu ka badiyaa waad aragteen ko yar yarka hada telefoonka u dhiibtid midka 15 sano jiray inay waxaadan aqoonin ka tusaan baa laga yaabaa ciyaalkaas la shakka way la tacaamulayaan television marka waxa loo baahan yahay aabaha iyo hooyadu inay isfahansan yihiin mowqif midaysan ay ka leeyihiin televisionka rag waxa jiro ku dadaalay inay gurigooda ayna keenin gaar ahaan sanadada hore waa la mootin karaa caruurta laakiin markay soo yara weynaadaan oo soo gaaraan 8 sano iyo 9 sano iyo waxay dareemayaan ciidaha u dhow inay television haystaan gaar ahaan haday ciidaha ku heeran ay television haystaan dib badan baa halka ka dhacay marka waxa dhacday rag badan inay guryahooda television u diideen laakiin ay arkeen caruurtoodii oo guryaha dariska galayso oo waliba filma hindi la fiirsanayso ama heesa Mareykan la fiirsanayso maxay yeelay midkaan meeshan yaalo gurigaada waa laga yaabaa inaad taxakum ku sameeysido waxa lagu daawanayo aad ku taxakumtid laakiin ciyaalka dariska haday u galaan waxa ay daawanayaan bay la daawanayaan marka waxa jira dad isku dayay xaalad dhexe inay sameeyaan oo ah inay television guriga keenaan laakiin kanaalada واتقانان وحوي وحلا سمايا إن لقى ترتره وحي كنال أو أنشحوما إيو ما عرفتي كوجيران أو لقى صور ريبو كنال هذا قرآن محاضرات كوا كرتون كعربي كاركود أو ولي بقى ما عرفتي كوا أخلاق في عن إيو مع أوجودو أنت بدن بكتاجن كرتون بشكل عام أو كرتون قمان أو عرور لو آمني كرح توالا واي حتى كوا عربي كوا هلايو لكن كوا رون باجرو كنال هذا maartay xayawaanaadka ka sheekeeyo ama dhirta iyo wax laga daawado iyo waxyaabaha beeraha iyo xoolaha iyo waxyaabahaas laga daawado isla markaa ayada ahna aabaha iyo hooyadu ay ka leeyihiin siyaasad midaysan haddii aabuhu wax uu diidayo hooyadan ay u daarayso waxyaabaha ugu daran oo tarbiyada baabi'iyay ka mid tahay aad bayna u dhacdaa caruurta dhexday ka baxayaan waa inay ka midaysan yihiin waa in nidaam loo sameeyo gurigaas la soo dhigay maxaa la yiraahdaa la soo dhigay televisionka xilli la furo televisionka iyo xilli la xiro waa inuu jiro waxa jirto wax la yiraahdo routine waxa laga wadaa wax soo noqnoqdo ay caruurtu la qabsadaan waa inay jiraan televisionka goormee la daaraa xilligaas ilaa xilligaas markii la damiyo cunug ooyi kara ma jiro waliba ciyaalka markay yar yar ka yihiin aad bay u fududahay in la qabadsiyo wax routine hadii loo sameeyo routine waxa kamid ah la sameyn karo in loo sameeyo routine waxa la wax soo noqnoqonayo waa jadwal mar walba soo noqnoqonayo in caruurtu aabaha iyo hooyadu ay ku tarbiyayaan inayna seexanin ayagoo adkaarta aan akhrinin markii habeenkii sariirta la geeyo oo bustaha lagu dado waa in la yiraahdo waxaad akhrisaan xitaa kuwa 5 sano jira iyo kulligood iyo ka yarba كي هاد لي كرو قرآن آخرين كرو قل والله أحد 3 مر قل أعوذ برب الفلق 3 مر قل أعوذ برب الناس 3 مر وإلا قبسنا يعني عروبان سلا كنت جابيه وحنا أركي إن حتى أنا هدان المامو أما هو يدود إنه كلهن قرآن كي آخرية أيجا آخرنا يو مد هديه هرد الله تكتكي كلا قو إيمانه سولي أبو
هبل مونا أخرين قرآن كي أبو قل هو لك كليو أخري مد بهردة لا تجسن تقول والله كليو أخري أبو قل هو لك كليو أخري سو ما ذكرنا وحاكى له تجابية أو واحد مجرب أو التجابي كمد عروته مثلا إن لو قلها كمد أو حيابها مهم كا إن على صدان أيقون عضيانين أين ساحن نقول ببراش كيسال الله سو قضية وحال اللي هي أديقون عضيانها ساحن هذا دتك أنت بدل الكهي كشجنا واضح ركتين وحالي أنا خاطرت أو بدلون لقد رجين أو مر والبلو باهي وأنا خاطرت الكه هاي العروتي سي حلوت يبسكت يتمر يوم شوكولاتة الله عنيه يهبينك أسطورة يعني حدي اللقبت سيس روتين بقول قنايا أبا كان مونا عضيانين مرمر بعضي جبا كلو مايو أما بهاش داود اللي جوا عضيانين يسالو مايسو مركزي كو إيمانه وحي كليهن أبو أو داود محن نقصو قدوي محن كو عضينا أو اسكس يحدنا هذا قد هذا وين عروت مركي يريهين وحبضن بقى لقبت سين كرا مركي روتين بقى لي هذا وواح صونق نقضه وحكم ده أذكرت إن لو وضع أخريه أذكرته قلب كيو كلايو صبحي أو كلايو عنقو أرجع جري جبر عروت الأدو تربيتين جرتو يمن دجنان جرتي مركي فجر كلا صباحه قولي إذا ماشى وحصل هذا مدوك سباق كشدر أصبحنا وأصبح الملك لله بوضع قاضيان مركي قاضان كو يرير كو هنا آخرين كريم بينتي جمعها كو طوفان بمرمرنا يعني وقلب كي يصبحي marka hadii aabuhu iyo hooyadu ay ku dadaalaan inay ku iltizaamaan oo ay joogteeyaan carruurtu way la qabsanayaan waxaas asaga waxa la yiraahdaa routine waa inuu guriga routine ka jiro waa inuu jiro wax maaragtay jadwal ah oo soo noqnoqonayo oo khayr ah oo aabaha iyo hooyadu waa carruurta ay weydiiyaan waxa kamid ah telefishinka xilliga la daawado xilli baa jiro mesela waxa kamid ah xilliga carruurta meel loo wado aday waxaan ku soo bilownay carruurta in waqti la siiyo marka waxaan ilaaway su'aal baan rabay inaan idin weydiiyo usbuuci baa meeqa maalin todobari Soomaa ninka carruurtiisa si hal maalin oo todobada kamid ah gacanta kor u taago hal maalin qofka si hal maalin bas aan ka hadlaynaa haye aniga jumcadan si kaliya ana idin bilaabaya jumcadan si aniga kaliya nus maalin ayo nus maalin inta si sawaaya maalin hafkid معناه وحن كوضع مالن بلن حتى هداد لهذا هذا مرنا ببلن قلين علماء كوي ما نيسو خيارته صاحب هذا أما شقده إن كده حيسو وحيكون ليهين بلن مهمة هجرت جمعة قلب كان سكوا معنا ما مالن كاس بلن بعرورت كل جيران هاي هل مالن أسبوعي خف عرورتي سسيو مجرى ما هنا هاي طيب هل مالين إن عروضها للسيو أنا لقيت تابانين وأويران لما مالين ما يفسحين أنت بدن سوما ضدكم هل مالين وكمد إن عروضها لقيت تابان وعنكو ولا بلنت أوين هدي دعدو ما يلا نيك هبل اللي يراهدو بلن هلو يراهدي لي وين اللي يراهدو ما مالين كاس ما إماضو مقالة ده عروضتي سوسية ها اوكي وفول دي جمعتنا مع الجمعه ايفن جمعه مثلا عيالك هدي تحفيظ كدغتان او كله waxaan isla jumcada fasax weyso marka fasax bay noqonayaan kuwaas oo kaleete halka hal maalin oo aabaha ay helaan muxuu sameeynaya jumcada uu soo wadaa مثلا ama haday jumca ahayn meel jibis laga cunu geynaya ama meel buu u yara wadaya ama xadiiqad buu geynaya dhaqanka anaga kamid ma ahan ba in carruur intii la qaado حديقة لجيو ما لا يعني بأنو نقنا حاس يتاسس كذا حاس كإن لجيو مداس وبانا جاري هوشيت وقت دمس نبى شيء كيو حيري حنا أركبه يري من يوك بيويري مسه ما قالوا وين بوي شيء ما قالوا إنك هو وين مريك كمدا نين سوماليا أو صعدة أو حاس كيس إذا بصعد حجابي كذا ما يساوي تقريبا واحد كله أنت صوت اللعبة مركزو أنتوا ديبوا سواء وحلين أنا ما سوي سعودت قلبت كان قبضنا قرب كان لقبتها مركز سالي هذا بيبي وحلا مذا مركز وحيري وحنا سير ويري أنت بدو حان مقلنا reer Soomaali oo gabdhihi ay furniin dalbadeen oo guriyihii burbureen Sooma waxyaabaha sababay waxay arkayaan nolol kale casho ma lagu geeyaa baa lagu leeyahay gabadha kale waxa ku leedahay
odaygaada casho ma idin geeyaa casho maxaa la dhahaa soo midda guriga lagu kari jiray maaha maxaa laga raadinayaa marka carruurta hal maalin in la siiyo magaalooyin waaweyn baa nimid baadiye ma joogno in maalin meel loo qaado in carruurta ku xisaabtamaan inaad safar tahay ma ogi maalinka aad ka taaban carruurta iyo reerka ay iska leeyihiin marka routiinka noocaas ah oo soo noqnoqonayo xilli la ciyaaraa jiro ciyaarta carruurta waad ka garhali hadday ayagoo ciyaaraya ama banooni soo ciyaaraya aad aragtid ama telefishan ii daar ay ku dhahaan aaba maalinkeedii miyaa baad leedahay mayo ku leeyahay hay-adda iska dhaf maalinkaasaan kuga waayahay buu ku leeyahay waryaa iga aamus maada dhihin ogow maada dilin ogow laakiin waxaa tiri nin maalin dhaweed ka sheekeyna wuxuu yidhi nimanka caddaanka yurub carruurta si u tarbeeyaan haddaan ka qaadan lahayn waxyaabay sameeyaan waxaa ka mid ah buu yidhi guriga wuxuu leeyahay rotiin iyo nidaam waxaa ka mid ah buu yidhi waan ka xusuustaa waxyaabuu sheegay wuxuu yidhi jukulaatada waa lagu jiradaa waxyaabahan sweetska macmacaanka maalin la cunay leedahay every day in jukulaato la cunay maaha dukaanka maalinka markii la aado dukaanka buuq iiga soo gad buu ku yidhi jukulaatana igu dar waa inuu isku dhihi karin oo tiraahdo maalinkii jukulaatada ma ahane jooji xaaji halkaa ku jooji cunuga marka wuxuu la qabsanayaa nidaam marka walaalayaal qodobkaas waxa weeye guriga in qaanuun loo sameeyo oo qoysku uu isku ogyahay qofkii wax halleeyo asagaa habaynayo qofkii wasakh meel dhigo asagaa ka qaadayo qof walba wixiisa asagaa xifdisanayo cadagiisa kan anaa meel kuu dhigaya ha ku dhihin cunuga baalka ilkaha lagu cadaydo kan waryaa waa iska luminaysaa waa mas-uuliyad darro ayuu dareemayaa waa inaad tiraahdid soo gasho khaanadaada adiga orto qofkii iska lumiyo haye wakaas kii kale iskama lumin adi maxaa iska lumaysa adigana waan kuu soo gaday laakiin mar dambe ha iska lumin waaye marka inuu uu la qabsado cunugu qodobka sideedaad waxaa weeye alciqaab cunuga see baa loo ciqaabaa annaga inta badan ciqaab haddii la dhaho maxaa noo soo degdegto waa garaaca soo ma waa usha oo weliba barees lagu garaaco ama suun lagu garaaco maalin baan magaalo weyn oo Soomaaliya ku taalo anoo dhex maray waxaan arkay nin gadaya shaabuug ama jeedalka yaryar ee carruurta lagu garaaco waa la yaqaanaa magaalooyinka qaar baa lagu gadaa bahal yaroo af dhuuban oo haddii meeshii lagaaga dhufto ku goosanayo marka intaan qabta waxaan ku yidhi ilaahay maa ka baqday wax kalood ka shaqaysataa weydi bahalka maa dadka carruurta lagu garaacay maa ka joojisa marka wuxuu yidhi adeer ciyaalka aniga babis in lagu garaacaan ka badbaadiyo babiska waad aragtay meesha usha dambe babis iyo bakoorad in lagu garaacaan ka badbaadiyo buu yidhi shaabuugga ma naxariis u ah inta lafahooda la burburin lahaa marka annaga waxaa noo soo degdegaysa ciqaab markii la dhaho in cunuga la qabto la garaaco la edbiyo bal waalidiintii hore waxay dhihi jireen aabbaha markay cunug macallin u geynayaan hilibka adaa iska leh lafahana anaa leh kolley meel lagu oranayo ma maqan laakiin waa wax caan ah oo soomaalidu u sheegto cunuga marka waxaa weeye in la ciqaabo oo saas loo garaaco ciqaab intiqaam aad moodid waxyaabihii ugu xumaa oon maqlay waxay ahayd macallin siduu cunug u garaacay cunugii uu suulbooday oo maaragtay infection iyo wax uu qaaday oo uu bararay oo uu dhintay waad maqasheen baan filaya magaalo ka mid magaalooyinka Soomaaliya ka dhacday cunugu uu dhintay waxaan maqlay cunugaas in dibadda laga keenay si Soomaaliya loogu tarbiyadeeyo oo cunug dibadda laga soo celiyay buu ahaa naxdin buu wala dhintaa laga yaabaa kaas maxay meel aan isku garaacin buu ka imaaday ciqaabtu marka walaalayaal waa noocyo badan tahay ushaas cunuga intiqaamka ah waxaa jirto garaacista lafteeda waa labo mid aad moodid argoosi oo dilitaan ah oo cadaawad ah oo cunuga laftiisa cuqdad u qaadayo ee mid naxariis ku dheehan tahay aan kala sheegi doonaa ciqaabtu way noocyo badan tahay waxaa ka mid ah aabbuhu inuu ciyaalka ku ciqaabo ul waa inay noqoto wax aad u fog waxaa la rabaa ciyaalku inay ka baqaan usha haddii usha aad ka badiso way la qabsanayaan waxaan xusuustaa dugsiyada markaan dhiganaynay ciyaalka macallimiintu aad u garaacaan oo murabbishiinta oo dhibka badan ma baqi jirin dhiig asoo ka daadanaya korkiisa ayaa laga yaabaa inuu ilinta intuu iska sii diro iska sii qoslo maxay la qabsadayba laakiin aabbuhu markuu ilmaha garaacin ilmuhu waxay sugayaan maalinka uu garaaci doono marka garaac wuxuu noqonayaa wax meel ugu xiran oo ka baqaan oo sugayaan marka waxaa ka mid ah noocyada loo ciqaabo cunugu markuu khalad sameeyo in meel loo wadi jiray loo diido
hadduu aabbahu meel u wadi jiray cunuga oo maaragtay meel ay ku ciyaaraan oo kale meel ay wax ka soo cunaan oo kale maalin fasax uu meel geyn jiray inuu dhaho maanta ma lihidin maxaa yeelay khaladkaasaa samaysan kan iyo kana samaysan laakiin waxaa la rabaa inuu marka hore u sharxo qofkii waxaa sameeyo hadda khudbadoo kale ka mid ah carruurta waa in khudbada loo soo wado aabbayaasha keligood ayna soo aadin subaxi waa in carruurta la diyaariyo haddii iskuulka joogaan waaba la gartayba laakiin haddii kuwii iskuul aan joogin baan ka hadlayaa marka haddii khudbada loo soo wadi jiray intii loo soo labiso maalinkaa in lagu ciqaabo in khudbada laga celiyo waxaa ka mid ah waxa uu jecel yahay maalan aabbuhu sambuus buu keenay ama waxay carruurtu jecel yihiin buu keenay qof baa khalad weyn sameeyey khaladaadka yaryarka waa in laga indhaha la iska laabto oo carruurta laga boodaa fiican wax walba in la daba istaaga ma fiicno marka khaladaadka waaweyn markuu galo wixii waa in lagu siiyo hortiisa kuwii kale lagu siiyo oo asagu uu arkay inaan asaga la siinin hadhow baa loo yeeri markaasuu aabbo wuxuu dhihi intuu xiwaar iyo wadahadal la galo aabbo anigu waxaas kuma siin jirin maxaan kuu siin waaye anaa waxaa sameeyey ku dhihi wuu kuu qiranaya marka haddaad iska daysid hadda ka dambe waan ku jeclaana wax walbana waan ku siinaya laakiin bisharta waxaa ah aabbanimo iyo intay qalbi uu ku qaado haddaad had siiso maalinka dambe dhaartaada been buu moodi waa inaad ka dhabayso waxa aad u sheegtoo tiraahdo waxaas qofkii sameeya meesha uma wadayo waa inaad ka dhabayso waxaa ka mid ah dad ba waxay sameeyaan nin baa waxaan la yaabay carruurtiisa muuna garaaci jirin maxaad samaysaa baan ku yidhi waxaan u sameeyaa buu yidhi 10 nuqdo 10 bointi ama 10 darajaa jirtuu yidhi bil walbo qof walba wuxuu leeyahay 10 darajo 10kaa darajo qofkii khalad sameeyo ma helayo qof walba waxaa la fiirin bishii ma 9 buu helay ma 7 buu helay ma 8 buu helay ma 5 buu helay meequu ka helay marka carruurta markuu u goodinayo ma garaacayo wuxuu leeyahay waxaan aad samaynaysaan haddaad joojin weydaan points baa luminaysaana ogaada carruurta maraykan buu ka soo raray qadar buu degaynaa marka aad baan ugu bogay ciyaalka marka waxay leeyihiin anay ii sheegayeen ninkaan saaxiib ahayn waxay leeyihiin ani points baan helay bishaan intaasaa la siiyey lacag ah ama waxaasuu aabbahay siiyey bishii horena waxaasaa la siiyey waxaasaan haystaa pointska marka mid walba wuxuu ku dadaalayaa pointska halkaasaana lagu qoraya guriga dhexdiisa lagu dhejinaya marka waa nooc ushi ka mid ahoo ama ciqaabti ka mid ah oo laakiin la habeeyey oo nooc kale laga dhigay waxaa ka mid ah canaanta aabbuhu inuu canaanto canaan ay ku jirto inuu tusinayo khaladka aabba soo aniga waxaas kuma samaynin soo waxaan iska daa kuma dhihin maxaa sidaa u samaysa haddaa waxaas samaysid aniga kuma jecli waa kaa maaragtay si canaan ah oo laakiin tii qaylada ahayd ee aan ahayn maxaa la yidhaahdaa darbigaa kuu soo haray garaacu waxaa weeye waa laba nooc saan soo sheegnay waa in cunuga lagu nafbaxo oo maaragtay qof waxaad arkaysaa cunuga garaacayo ilaa dhiig uu kaa keeno qof waxaad arkaysaa barees oo la baxayo oo isaga weyn wax haddii lagu dhufto una u adkaysteen ku dhufanayo macallimiinta ka mid ah macallimiinta dugsiyada quraanka ayaa ka mid ah garaacaas waxaa la yidhahdaa intiqaam waa cadaawad buu cunuga ku beerayaa midkaas looma baahno haddii khalad weyn uu sameeyo oo aabbuhu inuu garaacaba ay tagto waa inay noqoto garaac uu dareemayo cunugu inuu ul yar iyo wax ku dhuftay oo u badan maaragtay qayladaas xitaa lagu qaylinayo iyo maxaa waxaa u samaystay intaa keliya ku filan laakiin waa inuuna noqonin wax dil ah maalin baan macallimiin dowro u qabanay marka waxaan ka sheekaynay garaaca in la iska daayo adduunka oo dhan carruurta lama garaaca inta badan waxna waa la baraa marka nin baa hadlay rag badan baa garowsaday nin baa hadlay wuxuu yidhi nin khayr allah ku sii wax badan baa noo sheegtay laakiin carruurta garaaceeda waa wadaynaa mana daynayno saas cunug aanu la garaacay see quraan lagu barayaa marka halkaas bay dadka qaar ka taagan tahay marka dadkaasoo kale haddaad dhahdo hal mar usha wada jooji inuuna kaa yeelin baa laga yaabaa moogta laakiin at least bal ushaan cunuga nafta looga qaadaya in laga daayo oo cunuga waxaan xusuustaa mar aan dugsi quraan dhigan jirnay laba macallin baa noo dhigi jirtay mid baa aad dadka u dili jiray midna dilkiisu wuu yaraa laakiin wuu goodin jiray
oo nuu qeylin jiray waxaan ka baqi jirnay macalinka usha yar halka markuu ka soo baxo waa fariisan jiray macalinkan usha badanna caadi bay noo noqotay xagga asoo garaaca ka soo wadaan ku ciyaari jirnay marka marmar waxa weeye ushu ma ahan waxa iyada wax tarbiyadeynaysa iyada ma ahan ee waxa weeye cunuga sida loo tarbiyadeeyo ama uu loo tusiyo way qodobka sagaalaad walaalayaal waxa weeye khayrul umuri awsatuha cunuga in xargaha loo sii daayo oo wax xisaabtan aan lagu sameeynin lafteedu khalad weeye ma saxno annagu inta badan waxaan sameeynaa cunuga markuu yar yahay khaasatan sanawaadka hore wax walba loo sii deynayaa 3 sano iyo markuu jiray iyo ilaa heer wax uuna isaga lahayn buu walaalkii kula dhagayaa dhaqanka Soomaaliya aad bay ugu badanta hooyo u sii daabaa leeyahay asaga ka yeeray maalin dhaweyd baa cunug 5 jir ah wuxuu ugu yiri nin kale wax isku qabsadeen marka waan ka celiyo waxaan ku yiri ninkan waxiisa asaas kale u daa soo yiri aabo soo ani kama yari aabo soo ani kama yari waxa yelo wuxuu ku soo tarbiyadoobo xaafadda uu ka maqlay moogta oo haddaad ka yar tahayna ustoolada yar oo ciid lagu ciyaaro tiis intuu iska jijebiyo oo iska naco midkan kula dhagay waa looga qaadi doonaa moogta marka uu iska lalminayaa wuxuu ku tababaranayaa inuu dadka iska lalmiyo waxooda hadhow mujtamaca markuu dhex tago iyo qof walba wuxuu haysto iska lalmin hadduu rabo markii iskuulka la aado waxaan adiga iska malihid waxaan adaa iska leh waa in la baro cunuga ha ka weynaada hadduu rabo aabba asaa kaa weyne asaa kaa yara iska daa cunuga marka waa in uu barto indibaadka ama iltizaamka ama waxa inay wax nidaam ah ay jiraan aabba xilligii maantayto aan wax maaragtay meel hebla aadi jirnay ama banooniga ciyaari jirnay ma ahan ee xilligeeda lama joogo waa inuu yiraahdo qodobka tobnaad waxa weeye caruurta in la siiyo xaqooda ciyaarta inay ciyaaraan anaga mujtamaceena inta badan caruurta inay ciyaar u baahan yihiin uma qabaan maxaa yeelay ciyaalka baadiyaha iyo waalidku isma arki jirin sida la socotaan oo waxa weeye waxaa dhici jirtay meelahooda si isaga ordayaan waalidkan uu iska mashquulsan yahay laakiin haddartan magaala la imaaday guri yar baa lagu dhex jiraa caruurtu waxay sheegayaan culimada tarbiyadu gaar ahaan ilaa loo gaaro 9 sano iyo wixii ka hooseeyo ciyaar fara badan bay u baahan yihiin tabar fara badan baa ku jirto iyo taaqad iyo xoogga meel ay ku bixiyaan bay u baahan yihiin anaga marka dibkan ugu dhaco waxa weeye caruurta waxaan rabnaa inay edeb u fariistaan sida qof weyn wariyaa edeb halkaa u fariisaa la leeyahay sida sanam midka u fariiso saa yiraahdo yaa waxaan u naqaanaa wiil edeb leh midka ordana waxaan u naqaanaa mid murabbish oo inkaar qabo oo laga fariisan waaye cunuga ciyaar buu u baahan yahay wuuna ku samaysan yahay Soomaalida waxay ka sheekeyn jireen nin oday ah wuxuu yiri bay dhaheen waxaan rabaa caruurta caanaha la siiyo in la isiiyo caanaha un dhiisha ugu jiro oo iska cabayaan in la isiyaan rabaa markaas waxa lagu yiri inta ay ordaan maalinka orod adigana marka xogaa orod buu saan yiri oo markuu 2 jeer galay dhulka ku dhacay baa marka caruurtu waxay u baahan yihiin halka waxa ka fahmaysaa caruurtu waxay u baahan yihiin orod waxay u baahan yihiin taaqa xoog badan bay hayaan ciyaar fara badan bay u baahan yihiin waa inaan ogaano oo ciyaarta aan u diidin gurigeena kharibin oo burburin laakiin ciyaarta inaan u diidin oo ciyaaraan aabo tartiib u ciyaara aba halka ku ciyaara oo waxa ciyaara waxaan ku ciyaara waa in la yiraahdo way qodobka ku xigo ee 11aad soo gogobin insha Allah qodobka 11aad waxaan oo dhiman 2 qodob oo kale faqad waan soo gogobin insha Allah waxa weeye caruurta in lagu abuuro thiqa binafs ama kalsooni in lagu abuuro oo caruurta ay dareemaan in aabahood ku kalsoon yahay wax walba hadii la dhaho wariya aamus wariya shibde wariya ciyaal baa tahay loo tahdiido lagu qayliyo cunug waxa soo baxaya kalsooni la'aana marka waxa haboon in aabuhu uu dareensiiyo in cunuga uu kalsooni nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiiskii wiil ayaa jiray yar rag mashaayikh oo odayaal ah na meesha way fadhiyeen saxaabada nabigu ka idan qaatay wuxuu ku yiri caanahan ina odayaasha ka bilaabo ma ii idmaysaa marka waxay ku tusinaysaa inuu ixtiraamayo wiilkii yaraa wuxuu yiri
ما يا النبي الله caanaha adiga aad bixinayso nasiibka aan ku leeyahay ninna uga tanaasuli maayo marka in adiga bilowdaan rabaa asagi baa laga bilaabay marka halka waxa ka cad inuu nabigu uu maartay uu ixtiraamay oo cunugaas uu tusiyay kalsooni inuu ku qabo ama kalsooni uu dareensiiyay waxaan ustaani sheekh oo Masri ah baa majliskiisa fariisan jirnay marka rag culimo iyo ducaadaha soo imaado arrimo diin ah iyo waxa laga doodayaa maartay cilmi ah marka wuxuu sameyn jiray wiil yar waxa uu jooga 13 jir meelahaas aan ku qiyaas marka kalsooni buu gelinaya wuxuu leeyahay maxamed ma xusuusataa kitaabkaas arinta wuxuu ka yiri maxamed kitaab hebel soo qabo maxamed baa maalin dhow arinta ii sheegay waxa la yaabay suu u taqdiirinaya cunugiisa anaga dabeecadaanada iyo dhaqankana way ku yartahay in cunuga la taqdiiriyo war adeerayaal baa sheekaysana orda iska tag in la dhahmo ogiye in la taqdiirkiisa la siiyo haddii cunugu uu dhaco imtixaanka uu ku dhaco مثلا imtixaankii baa la keenay mid baa ku dhacay maxaan sameyn lahayn anaga inta badan waa lagu qeyliyaa Soomaa waa la canaantaa Soomaa waa la dilaa Soomaa haddii uu dhacay baa ninkan imtixaanku ku dhacay marka haddii lagu qeyliyo la dilo ma inuu fiicnaanayo kula tahay inuu ka sii daraa laga yaabaa marka waxa haboon in si kale loo daaweeyo niqaash lala galo iyo xiwaar oo la yiraahdo aab maxaa ku dhacay maxaad ugu dhacday waxa laga yaabaa asbaab inay keentay macallinka inuu ka fahmin ama inuu si wax ka noqdeen marka in la saacido oo macallin loo qabto oo si kale ta loola xaalo oo ma aragtay lala niqaasho cunuga kalsooni la dareensiyo qodobka 12aad waxa weeye carruurta in lagu tarbiyadeeyo mas'uuliyadda inay mas'uuliyadda xambaaraan arinta aad bay noogu yar tahay Soomaalida waxay ka sheekeyn jireen waxay dhahan ciyaalka ciyaal la yiraahdo ciyaal maamaha ama magaalooyinka waaweyn ku koray waxay yiraahdaan baa la yiri hooyo cinjeero isii ilaa 20 sano markuu gaaro hooyo cinjeero isii buu isaga hayaa marka gabar bay isguursanayaan cunug bay u dhalaysaa hooyo wiilkeygana cinjeero isii buu leeyahay marka ku sii xigto maxaa yeelay waxa laga yaabaa inaan lagu soo tarbiyo wax walba in afka loo gelinayo oo lagu soo tarbiyadayn inuu mas'uuliyadda qaado cunuga marka inuu mas'uuliyadda qaado waxay ka bilaabataa buwaagtiisa inuu meel dhigto 4 sano 3 sano iskuulkana hadda yaan booqday maalin dhaweyd waxay ii sheegeen maamulku in ciyaalka lagu tarbiyeeyo wixiisa inuu meel dhigto from 3 years 3 sano markuu yahay laga bilaabo waxaade aaway maxaa meel u dhigan weyday kabihiisa inuu meel dhigto buwaagtiisa inuu meel dhigto waxa uu ku cadeynayo inuu meel dhigto hadayna wax baan ka soo ishaa wax uga gadgato ee la siinayo haddii adiga aad siiso maalin walbo uu ka qaadanaya ilaa uu weynaado saasuu ku wadaya marka kii hooyo cinjeero isii dhahayay ayuu noqonayaa marka waxa la sameeyaa in cunuga masruufkiisa lagu wareejiyo 7 maalmood gaar ahaan markuu soo yar weynaado 10 sano iyo 9 sano iyo markuu soo gaaro in la dhaho waxaada yaryareyso isbuucan intaana leedahay marka ninba wuxuu sheegay wuxuu yiri carruurtayda waxaan ku tijaabiyay inaan iraahdo isbuucan ama bishaan markay yar weynaadeen waliba bishaan masruufkaadi waa ka iskuulka ku aadi lahayd marka waxa dhacday buu yiri mid kamid ah ayaa hal maalin ooga baxayo dadku isku dhaqaale ma dhaqaalaha qaabkay u dhaqaaleystaan midna uu gaarsiisanayaan marka mid laba mid oo kamid ah way ku najaxeen bishii bay ku dhameysteen midna hal maalin mise 2 maalin buu ooga baxay marka muuna garaacin mana canaananin xayawaan baa tahay loser baa tahay waxaad luminaysaa waxa ku musadeen bishii kale markii la gaaro wuxuu kiraabo khayr la ku siiyo labadan nin waa mahadsan yihiin waajibkoodu waa ka soo baxeen lacagtoodina waa dabarteen khayr la siiyo adiga laakiin ballantii aan galna waa ka soo bixi weyday sida awgeed maalin walbo haddaad qalin u baahan tahay haddaad koob cabitaan u baahan tahay aniga iimo ana hal kuu siinay hal shilin baan kuu siinay aniga iimo rag kalena waa kuwaan buu bisha soo socoto biilkeedii waa kaasay qabsada marka wuxuu dareemay cunugaas aad buu uga xumaanay Soomaa markaas wuxuu yiri aabo mar dambe uma noqonayo ma dhacayse bishaanisi waan siiyay mar dambe uma soo noqonin buu marka waxa lagu tababarayaa cunugaas inuu mas'uuliyadda u ma aragtay u xambaaro qodobkan ku soo gabagabeynaa waxa walaalayaal awlaada in abaalmarin la siiyo almukaafa'a ayaa la yiraahdaa waa in wax markuu sameeyo uu dareemo in mukaafa'a la siinayo ama abaalmarin hadda waxa samaysid
abaalmarin baan yaan ku siinayaa abaalmarintaas wax badan bay tashjiicinaysaa ma sha Allah usbuucan waa fiicneedeen ballamihiin waa ka soo baxdeen xilligii la ilaalinayay iyo ballanta guriga waad ilaaliseen marka jaa'izadaasaan idin keenay maanta ama soo baxa maanta maqaayad baan idin wadayaa marka waxaas macno weyn bay u samaynaysaa maalinka soo socotana inay ku dadaalaan ayaa dhacayso walaalayaal mawduuca tarbiyatul awlaad waa mawduuc aad u ballaaran waxaa jirto meelo wali aanan gaarin oo ka sheekaynin oo ka mid tahay caruurta teenagerska la yiraahdo ama la yiraahdo muraahiqiinta oo ah kuwa soo qaangaaray ee dhibka badan lagala kulmo tarbiyadooda see loola tacaamulaa see loo tarbiyadeeyaa caruurtaas waa caruur u baahan daryeel gooni ah waxay u baahan tahay muxaadaraad gooni ah in looga hadlo laakiin caawa intaasaan kusoo gabagabaynaynaa insha Allah tacaala waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo abayaasha Soomaalida ah waa iyo Soomaalida shacabka Soomaaliya bishakl caam waa dad diinta jecel waa dad caruurtooda inay tarbiyayaan jecel waxaan aad iyo aad u soo jeedinayaa caawa laga bilaabo intaanada meesha fadhido in aan waqti siino caruurteena jadwalka inaan ku darsano inaan waqti siino caruurteena oo galabkii markaad shaqadaada dhamaysato intaad maqaayad ka sheekayn lahayd aad caruurtaadi aadid oo caruurtaadi kugu farxaan oo caruurtaadi ku arkaan oo maalinka fasaxa aad leedahay iyo maalinka aad firaaqo hesho inta aad iska soo tagi lahayd oo meelaha iska fafadhin lahayd aad caruurtaada la sheekaysatid waqti siisid hadhowto waxaan lahaynaa caruurtan waa la tarbiyadeyn waaye waa la kari waaye annagaana juhdi fara badan aan gelinin ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanaynaa caruurteena inuu noo dhowro ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanaynaa kuwii mas'uuliyadaas tarbiyada ka soo baxo Allah naga dhigo caruurta loo duceeyo aad iyo aad in loogu duceeyaa loo baahan yahay ambiyadii baa caruurtooda u duceyn jirtay rab wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam ayuu leeyahay nabi ilaahi ibraahim ilaahay naga aniga caruurtayda naga najee inaan asnaamta aan u sujuudno ama aan caabudno ayuu leeyahay marka walaalayaal in caruurta loo duceeyo ayaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay in laga dhowrsado in caruurta la habaaro in sheekha hadda dhagta igu sheegay isoo xusuusiyay caruurta habaarkooda nusuus baa ku soo aroortay caruurtiina iyo xoolihiina ha habaarina maxaa yeelay waxa laga yaabaa inay waafaqdo saacad ijaabo oo samada furan tahay oo ilaahay uu ajiibo markaasaad hadhowta ka shalaayaysaa markaasaad waxaad leedahay alla maxay waxaan ugu dhaceen marka habaarka la habaaray caruurta balaaya alla kuu rid kan alla kaa dhig alla kuwaal alla ku yeel in la iska ilaaliyo oo caruurta loo duceeyo oo maaragtay aabayaal iyo hooyooyin intaba caruurtooda inay u badbaadaan waa jecel yihiin ilaahay lala kaashado ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanaynaa inuu noo waafajiyo khayrka khaatimada ilaahay inuu noo soobiyo cibaadadeena inuu naga aqbalo caruurteena iyo caruurta muslimiinta iyo awlaadda muslimiinta oo dhan meel kastoo joogaan iyo aabbo walba iyo hooyo walba oo caruur la xarbinayso ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo uu kaalmeeyo inay ku tarbiyadoobaan diinta islaamka ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu ugu kaalmeeyo inay sida ugu wanaagsan oo ay jecel yihiin oo la jecel yihiin inuu ilaahay ugu tarbiyadeeyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa aabayaasha iyo hooyooyinka caruurtoodu ka lumeen ama maaragtay akhlaaq xumo iyo mooryaannimo iyo balaayo ooga dhaceen ilaahay inuu u soo badbaadiyo inta xirxiran ilaahay u soo furo inta maaragtay luntay ilaahay inuu u soo celiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu ka dhigo qurratu caynin liwaalidayhim kuwa indhaha ay ku qabowsadaan inuu ka dhigo ilaahay waalidkeen inuu naxariisto nagu soo daalay iyo macallimiinteeni jazaakum allahu khayr ala husni istimaac waan idinku dheeriyay raalli ahaada barakallahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu